بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا المقتهي وحنا رشينا كوه عقبدا inaga hortaagan inaynu horey u socono ma ogtahay walaal waxa inagu beeraya murugada iyo welwelka ma ogtahay walaal waxa inoo diidan in aan faraxno oo aan qosolno oo aan doola cadayno ma ogtahay walaal waxa ina dareensiinaya cidlanimada iyo kali ahaanshaha inaga ku dhex jirna asxaabteena iyo ehelkeena inaga ku dhex jirna waxa cidlada na dareensiinaya ma ogtahay walaal waxa inoo diiday in aan dareenno macaanka ay nolosha ay leedahay waxa inoo diiday inaga hortaagan in aynu dareenno nolosha macaanka ay leedahay walaal ma taqaan ma ogtahay walaal waxa inaga hortaagan in aan macaansano oo aan dhadhansano cuntada cabitaanka hurdada macaankeeda in aan dareenno oo aan dhadhansano waxa inaga hortaagan walaal ma taqaan iyo wax kasta oo ay nolosheena u baahan tahay ma taqaan waxa inoo diiday ma taqaan raaxada iyo in aan qaadano hawadani macaanka badan waxa inoo diidan walaal ma taqaan walaal bal isweydii oo naftaada weydii maxay yihiin waxa ii horseedaya ciriiriga dhibaatooyinka waxa ii horseedaya ciriirigaas talow muxuu yahay waxa nolosheena ciriiriga gelin kara oo nolosheena caqabada ku noqonaya oo noloshaas inaan macaansano inoo diidaya inaan ku raaxaysano oo macaankeeda aan dareenno inaga hortaagan waa dembiga Allah subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay inuu yahay ciriiri inuu yahay mugdi inuu yahay guuldaro Allah subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay inuu yahay naxdin iyo walwal iyo walbahaar iyo balaayo iyo baas inuu yahay Allah subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay dembiga waa culayskaas oo na xakameynaya dembiga waa murugo iyo welwel inoo diida farxadda dembiga waa ciriiri iyo kurbo inoo diida in nolosha aan macaansano oo aan dareenno nolosha macaanka ay leedahay dembiga waa cabsi iyo walbahaar dembiga waa mugdi aad u daran dembiga iyo xumo walaalayaal aan kaga soo baxno murugtaas iyo welwelkaas iyo ciriirigaasi aan kaga soo baxno in Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa aan u laabano in Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa aan u laabano aan kaga soo baxno Allah wuxuu inoo tilmaamay walaalayaal in dembigaasi uu yahay waxa loo yaqaan baadi iyo ciriiri iyo dhibaatooyin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo tilmaamay faman taba'a hudaya fala yadullu wala yashqa qofkii aniga hanuunkayga soo raaca oo wixii aniga aan faray la yimaada waxaasi malumayo inta adduunka u joogo ma noqonayo baadi sidaasoo kale noqon maayo qof meel xun ku dambeeya oo dhibaatooyin ku dambeeya noqon maayo sidaasoo kale rabbigana dembiga wuxuu ku tilmaamay inuu yahay cabsi iyo walbahaar Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun qofkii hanuunkayga raaca qofka dushiisii cabsi iyo murug ma aha ma cabsanayo ma walwalayo ma walbahaarayo Allah subhanahu wa ta'ala warkiisa hadii uu qaato sidaasoo kale rabbigeena wuxuu ku tilmaamay dembiga iyo xumaha inay tahay ciriiri nolosha qofka ciriiri uu dareemayo Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ruuxi ka jeedsada aniga xuskayga iyo dhikriga ruuxi laga waayo qofkaasi wuxuu ku noolaanayaa nolol ciriiri ah buu ku noolaanayaa maalinka qiyaamahana waxa la keenay isagoo aragii beelay markaasuu yaabe wuxuu dhihi qaala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira Allah maanta maxaa ii keentay anigoo aragaygiila Allah maxaa ii keentay inda la hanjiray aragaygii aaway Allah ku dhihi doona subhanahu wa ta'ala qaala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sidaasoo kale arinka waa sida aayaadkeeni iyo xaqani baa ku yimid markaasaad iska ilowday sidaasoo kale maanta waa lagu ilaabay waxaa loo sii raacinayaa wakadhalika najzi man asrafa walam yu'min biaayaati rabbihi walicadaabu alaakhirati ashaddu wa abqa
sidan baa lagu sameeyaa oo lagu abaalgudaa qofkii xadgudba oo aayaadka rabbigiisa aan rumaynin cadaabka aakhira u darnaansho badan oo maca daalika u baaqi ahaansho badan arrinkaasaa lagu dhigay Alla subxaanahu wa ta'aala sidoo kale wuxuu tilmaamay qofka marba haddii laga waayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala taacadiisa iyo rabbi subxaanahu wa ta'aala u hoggaansankiisa inuu gelayo waxa loo yaqaan mugdigii hadda aan soo sheegnay in ciriiri uu gelayo in murug uu dareemayo in cabsi uu dareemayo isagoo asxaabtiisii ku dhex jira inuu baqayo noloshii inay ku soo noqonayso ciriiri inuu walwalayo inuu walbahaarayo nolosha uu nool yahay ruuxa inuusan macansan waxa keeni kara waa dun arrinka maxaa looga bixi karaa arrinkaasi maxaa looga dheeraan karaa Allah subxaanahu wa ta'aala waa inoo tilmaamay Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay isagoo inoo sheegay nafteena san ku hagaajino oo nafteena aan ku dahirno Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa inastaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah haddaad istighfaarsataan oo istighfaar alla timaadaan Allah subxaanahu wa ta'aala xaqiisa aad u laabataan alla wuxuu idinku nooleenayaa nolol aad u wanaagsan ilaa xil buu nolol fiican idinku nooleenayaa Alla subxaanahu wa ta'aala inta kadibna mid kasto idinka mid ah waxa la siinayaa fadligiisa iyo dheeraadkiisa baa la siin wa in tawallu fa inni akhafu alaykum adhaaba yawmin kabiir hadii aad jedsataan oo istighfaartaas iyo toobadkeenkaasi iyo soo laabashada hadii la idinka waayo maalin weyn cadaabkeed baan idinkaga baqaya sidoo kale rabbigeena wuxuu leeyahay wastaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi inna rabbii rahiimun waduud alla istighfaar weydiista alla subxaanahu wa ta'aala xaqiisa u laabta rabbigaygu waa midka naxariista badan oo adoomadiisa jecel weeye isaga xaqiisa u laabta oo dambigii iyo murugooyinkii ka soo dhaxbaxa oo alla subxaanahu wa ta'aala xaqiisa u laabta alla sugud wuxuu noo fari وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنين لما أنت الله سبحانه وتعالى أطورت كان لما أنت الله سبحانه وتعالى أطورت كان الله أمدك نحرست بغن دي أتصلى بطان وحاه باله إن هذه لبانيسان سيدا سوك الربي جانا وحو ليهاي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى حقي سأمال عوانا يعني Allah subxaanahu wa ta'aala xaqiisa uma laabanayaan miyaa oo istighfaar ma weydiisanayaan miyaa Allah waa mid ka dambi dhaafka badan oo naxariista badan sidoo kale rabbigeena si guud wuxuu noogu booriyay waqul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatillah udheh addoomadayda xadka gudbay oo dembigoodii xumahoodii uu batay nolosha murugteeda iyo ciriirigeeda iyo walbahaarkeeda ku jira nolosha ay dhibayso inay sii noolaadaan oo nolosha ciriirigeedii dareemay oo dembigoodii uu gubayo xumihii iyo dembigii ay ku dhaceen ay la socon laayihiin oo ciriirigii ay dareemayaan oo baqaya u dheh addoommadaasi waa addoommadayda alla wuxuu ku tilmaamay addoommadayda u dheh addoommadayda xadka gudbay oo dembiga badan ku dheh ha ka quusanina ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa laa taqnaduu min raxmatillah ilaahay naxariistii ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica alla dembigo dhan wuu dhaafaa dembi kastoo ka dhaca wuu dhaafaa inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaalatin thumma yatuubuuna min qariib toobadkeenka wuxuu u sugnaaday iyagoo xumaha moog ama jahli fii anfusihim ku sugan oo alla subxaanahu wa ta'aala ay moogan yihiin kuwa xumaha ka dhaca oo haddana toobadka keena waa waxa u sugnaatay toobadkeen alla muxuu sii yidhi فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما وأسأل كتوبة أقبل دون سبحانه وتعالى ألنا وحو أهابي مدك وحكست أغو حكمة بدر سبحانه وتعالى يقول علي الدنبق وعدباتو دنبق وعليس ألنا سبحانه وتعالى حالو يمكن ويقانا الله وحنا ليه سبحانه وتعالى حدث القدسي يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الله حالك إنه أجيها سبحانه وتعالى مركز أوحونا ليها أدوما ذيذو هبينك يمالك بعد حمان سمينيسا أن الدنبك لن وان دافا إيطابت كان الدنبك وان دافا يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ابن آدم انت إرجانيسا
ay soo laabanayso dambigaaga waan dhaafi una aabayeeli maayo Allah ku dhahayo subhanahu wa ta'ala inta rabbigeen aynu rajaynayno inuu xaqiisa u laabanayno oo xumaha aynu ka soo dhaxbaxayno Allah wuxuu inoo ballan qaaday subhanahu wa ta'ala dambigeen inuu dhaafayo walaalayaal nolosha waxa ciriiri gelin kara in nolosha macaansigeeda waxa inoo diidi kara waa dambiga nolosha wuu halaagi dambiga nolosheena wuxuu ka dhigayaa kharaar dambiga wuxuu inoo diidayaa in laabteena ay qabowdo oo laabteena farxad aan ka dareeno qofki isagoo cunaya oo cabaya oo labisan oo guriga ka soo toosay oo maca dalika qalbigiisa gubanaya wallahi dambiga waa culays wallahi dambiga waa murug iyo welwel iyo ciriiri dambiga aad buu dhib badan yahay aan ka soo laabano walaalayaal aynu Allah subhanahu wa ta'ala uga toobadkeen aynu Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa uga laabano Allah wuxuu inoo ballan qaaday in dambigaas uu dhaafi doono Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ka'absada maalin Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa la idin celin doono maalinkaas naf kastana waxa la siin doono loo abaalgudi doono waa waxay soo shaqeysatay Allahna ma ahan midkii wax dulmiye subhanahu wa ta'ala dambiga waa dulmi aan naftayna aan dulminayno dambiga waa dhibaatooyin nafteena aynu dhibi Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa aan uga laabano oo inuu dambi dhaafaya soo qaado laba rakac aayatullahi subhanahu wa ta'ala aqri ku dheerow aayatullahi wa kalaamullahi subhanahu wa ta'ala aqri oo waqti badan siin inta kadibna ducayso farxad baa dareemi nolol macaan baa dareemi Allah subhanahu wa ta'ala wuu ku soo dhaweynaya nabigana muxuu yiri at-ta'ib min ad-dambi kama la dhanba lah qofka ka soo laabto ka toobadkeena xumaha waa qof bila dambi oo kala ah inna Allah yuhibbu at-tawwabin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu jecel yahay kuwa toobada keena hadaan toobadkeena oo soo laabano Allah ina jeclaanayo subhanahu wa ta'ala aan ka soo laabano walaalayaal xumaha iyo dambigan ka soo laabano aan u laabano rabbigeena subhanahu wa ta'ala xaqiisa isagoo na jecel buu soo dhaweynaya xumiina waa inoo dhaafaya wuxuu inoogu bedelayaa xasanaad ألم حيري فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هدي أن توبتكنا ولا ليا حميه الدنبيجين ربي وحنو بدل يا حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقوة حمه هذا لو بدل يا حسنات وقوة حمه هذا لو بدل يا حسنات وجزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا محمد.